hadda ka hor waxaa la yidhi doodaa dhex martay raggii golaha sare kacaanka weliba shantii sare jaamacadda ummadda markii la furahay gaheer xaggee laga furaha la yidhi marka waxaa la yidhi waa la iswarsadayo doodaa la galayo gobolada ha loo qaybiyo kulliyadda veterinary halkaasaa la geeyo kulliyadda saas daddaa ra'yi kala duwanaa la dhiibtay nin marka madaxweynaha aad u yaqaana wuxuu yidhi madaxweyne malaha meeshan in xamar laga furo rabay jaamacadda ayaa wuxuu yidhi madaxweyne an wax ma kuu sheega haa ardaydan hadday naga fogaadaan ardayda waa dhib badan yihin oo dhahay ay caasimadda ka fogaadaan hadhowdii meeshaas ay nashaad siyaasadeed iyo activity kasoo bilaabayaan annaga xukun naga tuurayaan oo yidhi marka waxaa ila fiican oo dhahay in xamar laga fulo meel annaga uga jeedno koley ta aniga ma joogi laakiin ninkaas xuseen kulmiyo ayaa la yidhi walahi jaamacadda xamar laga furo rabay asaga marka wax walba waxaa lagu soo koobay caasimadda si loo kontaroolo cidda dhaqaaqaysa iyo cidda baxaysa iyo dowladnimada gacanta loogu hayo tii marka maxay dhashay in gobolada intoodiiyo kaloo dhan ay zero noqdaan dadka marka tii ma rabaan hadeertaan dadku cabsiyay qabaan xukun dowlad dhexoo adagna lama rabo ninkii ku riyoonaya inuu soo celiyana waa luunsan yahay dadku federaalka waxay u qaateen inay maamuladooda u kala madax banaadaan doorashada dadkooda iyo deegaanadooda canshuurta ayaga ay bixiyaan lagu maamulo wax loogu qabto dowladda dhexana dadkii matalahay usoo dirsadaan dadka Soomaaliya meesha hadda ku kala joogaan waa saas kuwaas saasa marka waxaa la rabaa institutionadaas la rabaa in lagu dhiso oo federaalka ilaa dhowr boqol dowlad ku dhawa haysata oo anigu waan darsay federaalka dowladaha adduunka intooda badan inta kalena waxay haystaan wax la yiraahdo decentralization oo Norway ay kamid tahay oo Britain ay kamid tahay awooddu waa dhexda waa furan tahay kamuunadu waa kala madax bannaan yihiin deegaanadu dadku way soo doortaan laguma noqon karo nidaamkii dowladda dhexe dadku taamayaan arkay dowladda Soomaaliyeed oo xoog leh define marka tiraado xoogga wax u haystaa in wax walba dowladda ay gacanta ku hayso xoogga kaas ma aha xoogga waa institutionka dowladnimada waxay xooggeeda ku jiraan institutionka ku jira waxaan kale u baahanahay inaan qof dhisna ma rabno inaan institution dhisna rabno qofkii dhahayo Cabdiraxmaan waa mucaarad ama wadajir waa mucaaradnimada annagaan u socono waa constructive waa midda aad ku nimcaysanaysaan oo Norway aan ku joogno oo dowladdiina Norway check and balance in kaga hayaan mucaaradka in kaga hayaan haddii loo daayo awoodda nimanka xukunka haysta oona mucaarad check and balance ku sameeyaysan lahayn waxay rabaan iska sameey lahaayeen annaga waxaan rabnaa in la dhiso institutions ma rabno individuals in la dhiso haddii Cabdiraxmaan Cabshakuur bari xil ku guuleysto noolow iyo waar iyo adaa jiray haydihinina igala xisaabtama waxa ammaanaha ii dhiibateen annaga waxaan rabnaa dowladda isla xisaabtamayo sayidina Umar Khadaab asoo khudbaynayo member ka hadlaya masaajidka dhexdiisa ayaa nin reer baadiya saa intuu fiiro oo khudbadaas ay ku dhageysanayna laba go oo dheeraad ah wadataa markaasuu wiilkiisa Cabdullaahi ay u jawaab markaasuu aabay waa nin dheero أنا قوي قدري هذا أنكم مغلينا هذا لو يري مركا سيدنا عمر هذا القيام بدنا وضعه وهو يري لا خير فيكم إن لم تقولوها هدي إذا كنا نصحيننا خير من الدين ولا خير فينا وضع إن لم نسمعها أنا جن هذا المقل وخير من الدين ديمقراطية ذو أو حكومة مين هاي وإنستيشناليز جريد ديمقراطية ذو السائس كبلها مقرت أنا مركب وحرمنا مرة منه إن individuals لا دسوا وحرمنا institution لا دسوا وحن كلو رمنا يا أنا إن عملا إن واحد الله ودي بمرة منه أو وحيا loyalty of quality meritocracy واحد اللي لو كان لوجنولي هاي هذا مرة تريزارها نروي وأنا ضد تعبان وشغال يذكر إنه كم درك كلمة قانين because وحوا ولا الحساب تمام برا ما نجوا accountability يجوا بريها دي لا حساب مرة بينو فشلمو مركز the best quality إنه team كيسا إنه رات سدواي in order to justify موقتها إنه وح كمانان مركز يا الله يلي أموي معها إنه وحكو دورته وحكو دورنا يا qualify يا وح كبكرة لكن دتك هذا سنجري عن الجوجر ربا إنه وحكو دورتان يا إن عملينا يا فيسبوك يا أمانة يا إيري وفي عنك يا إيري النولو يا اجعل إلى أن كل دارته موح لقى أمسي كرا وزارتها وجمهم سن دلكن كيجا بل فيريه دتك ما حكى هي أذا النبت قليل دتك ما حكى فيريه أنا مرة بينهم قف حقيره
laakiin dad lagu soo xulay leadership iyo criteria iyo madax banaani ma aha waan ogtihiin dadka Soomaaliyeedna waa ogyihiin sayidina Abu Dar al-Ghafari nin wuxuu ahay caalima saxaabi weyn ah taqi ah nabiga oo yiri kaligiisa la soo bixi doona kaligiisa oo dhimo doona mujaahid ah maaluu nabiga xilu doonta alayhi salaatu wasalaam amarkaas arintaas la diibo dhahay sayidina Maxamed ma mujaamaleynin ma ku diibaayo dhahay because innaka muxuu yiri imru dhaif qofaan waxaan ka soo bixi karnaa tawda saxaabi weyn oo la ixtiraamo Abu Dar al-Ghafari nabiga ma mujaamaleynin waxay kama soo bixi kartid waxaan digaraa leeyahay sorry marka maaha waxa la isugu dhiibaayo maaragtay yaa i taageersan iyo yaa i sacbiya maaha yaa i challenge garay kara yaa ra'yiga ka duwan oo ka weyn keeni kara hadda ka hor khudbadeedii ku jirta baarlamaanka nabi Muuse ilaahay wuxuu yiri maaragtay ij'alni wasiiran min ahli Haruna akhi ujdud bihi azri wa ashriku fi amri ilaahay waa weydiiyay waaya u rabtaa Harun huwa afsahu minni lisanan dhahay huwa afsahu minni lisanan waa iga balaaqa badan yahay dhahay wa quality ما هو walaalkay waa ma dhihin waa laga shakiyay marka walaaltinimo u rabaa leesir akhi alla walaalkiisu hay ma yoo dhahay waa afsax minni lisanan justify marka waxa la rabaa marka quality in la isku doorto ma in la isku doorto ma aragtay ya aniga hebel iyo hebel ya waxaan u soo noqonayaa qodobka ugu muhiimsan